waxaan ku eegaynaa qaybteennan sida loo sameeyo categorieska iyo sida loo sameeyo haddii la yiraahdo articleska. categoriesku waxay noqonayaan marka aynu ka hadlayno joomlaha waa qaybta ku organize garanaysa ama ku habeynaysa articleskaagi maqaaladaadii qaybta habeynaysa lagu dhex gurayo. categorigu waxa ku jiri kara hal category maqaalo fara badan ama article fara badan. article kastaana had iyo jeer wuxuu gali karaa qayb kaliya ama hal category buu gali karaa. haddii aad categories isa si hoos galgaliso oo hal category aad hoos galiso category kale ama qayb kale waxa la soo oranayaa waa subcategory. tusaale ahaan category maxaan uga jeedaa markaan ka hadlayo web design-ka ama joomlaha waxaan uga jeedaa newsku ama warku waa category. warku wuxuu sii yeelan karaa marka qaybaha uu sii yeelan kara waxaa ka mid ah warkii u dambeeyay war degdega waxa weeyaan breaking newsku wuxuu ku sii hoos jiraa categoryga news. marka hal news ba hal category wuxuu sii kala yeelan karaa many categories. kuwani marka waa subcategories. categorygu marka uu yahay qaybta inoo haysa articleadeena ama maqaaladeena waxa ku xigaynu eegaynaa marka articlesku waxa ay yihiin joomlaha dhexdiisa. articlesku wax kale maaha waa hal maqaal ama qoraal qoran ama hal war. halka war marka wuxuu sii dhexgelayaa categoriyadii hore ee aynu ka soo hadalnay. waxaan marka hadaba ku eegaynaa session-keenan maanta ama qaybteennan sidee baa loo sameeyaa category, sidee baa loo sameeyaa article joomlaha dhexdiisa. si hadaba aynu u sameeyno intaas waxaan u baahanahay inaad hal shay hubiso in horta WAM serverkaagi uu shaqeynayo iyo in aanu ahayn active. waxaad ka eegaysaa marka halka WAM serverkeenu waka marka aad dul geyso waxa kugu soo baxaysa inuu online yahay. inta marka aad iska hubiso waxaad gelaysaa marka browserkaagi waxaad ku qoraysaa marka localhost waxaad raacinaysaa website-kaaga magaciisii. site-keenu waa active waa kan inoo shaqeynaya. qaybtani waa qaybtii public ahayd ee cid waliba arkaysay. qaybtii laga maamulayay haddii aad u baahantahay in la galo waxaad inoo furaysaa tab cusub. waxa lagu qorayaa marka website-kaagi si hadaba qaybtii laga maamulayay loo galo waxa la raacinayaa marka administrator. waxaad gelinaysaa marka password-kii iyo user-kii. inta marka aad geliso waxaad leedahay login. waxay noo soo baxaya meeshii marka control panel-ka ee laga maamulayay website-kaaga. si hadaba aad category u samayso dhowr meelood baa laga sameyn karaa. qaybtan panel-kan content halka ay ugu horeyso categories baa laga sameyn karaa adigoo category manager tagay. haddii kaloo doonayso category in la sameeyo waxa la sameeyaa content baa la tagaa. markaasaa la sii galaa category manager. daad waxaad oranaysaa marka add new category. category-ga maxaad u bixinaysaa? waxaan u bixiyay warar ama news. then news marka aad u bixiso let us say warar aan idhaahdo. alaisku waa magac yar oo naanaysood raacin karto ood u bixin kartaa nacam wararka waxaad sii raacin kartaa warar. halkan waxaad ku qori kartaa description yar oo ku saabsan category-gaasi wuxuu qabanayo. waa qaybta guud ee lagu guri doono wixii sawiro wixii warar ah ee cusub. title-kii baan siiyey, alais baan siiyey, description baan siiyey. description kuma aha qasab waad iska dayn kartaa waad qori kartaa. daad waxaad leedahay marka category-ga save and close. save garee dabaad iga xidh. save and new save garee mid cusubna samee. waxaan leeyahay save and close.
waxaan inoo sameeyay marka hal category oo la yiraahdo warar haddii aad category kala sameynayso waxaan ku ri content tag category dooro waxaad tiri add new category u bixi marka wixii aad doonayso in laga dhigo category-ga magacii aad siinaysay waxbarasho ayaan idhi alliance waad iska dhaafi kartaa waanaad gelin kartaa description-ka waa la iska dhaafi karaa waana la gelin karaa waxaan leeyahay markaa safe and close waxaanu sameynay marka hadda laba category articlesku maxay noqonayaan haddaba articlesku iyaguna waxay ahaayeen category-ga wararka qoraalladii dhexgelayay iyagana see loo sameeyaa waxaa loo sameeyaa haddii aad doonayso control panelkii guud in lagu noqdo halkaas sare calaamadda ayra joomlaha ayaa lagu dhuftaa waxay noo soo baxaya control panelkeennii article cusub haddii meesha la gelinayo waxaad leedahay add new article article manager-na waxa weeye waa meesha laga maamulayo article hore oo meesha ku jiray category manager-kuna waa meesha laga maamulayo category-yadii hore tusaale ahaan category-ga hadda aynu sameynay haddaan doonayo inaan arko waxaan ku dhufanayaa category manager ama content baan tegaya waxaan leeyahay category manager haddaan doonayo inaan masaxo category-ga waxbarashada tig baan saarayaa tig markaan saaro waxaan ku dhufanayaa markaa trash wuxuu masaxayaa markaa category-gii alright haddaba haddii aan doonayo inaan article cusub soo geliyo halkee baan tegaya waxaan leeyahay content baan tegayaa article manager add new article marka waa inuu diyaar ku ahaadaa qoraal qorani halkaasaan markaa gelinayaa article-kii dabeed halkana waxaan gelinayaa markaa article-ka aan title-kiisa halkaa geliyay qoraalkiisa tusaale ahaan oo kale warkan oo kale Crimea oo markaa u codeysay inay ku biirto Turkiga ayaan koobiyeenayaa waxaan ka dhigayaa markaa inuu title-kii yahay article-kayga qoraalkii kale hoos yaalina waan soo koobiyeysanayaa waa warkii markaan noo koobiyeeyo isagana waxaan soo dhigayaa halkaa description-ka right click best ama control V waa best qoraalka meesha inoo yimid title-kii baynu siinay Crimea photos on joining Russia waa war weeye dabeed qaybta category-gaan tegayaayo waxaan leeyahay article-kaygani wuxuu xidhiidh la leeyahay ama wuxuu u yahay sub waa qoraal hoos gelaya wararka category-ga markaan doorto waxaan haddaba sameynayaa read more qoraalku wuu fara badan yahay waa inaan read more sameeyaa waxaan leeyahay halkaa marka intaa dadku ay akhriyaan wixii ka hooseeya read more soo geli halkaasaan ku dhufanayaa hal mar baan click siiyo hoos baan u soconayaa halkaasaan ku dhufanayaa markaa read more wuxuu inoo soo gelinayaa markaa leadka dashka ah oo macnaheedu yahay intaasuu qofku arki doonaa wixii ka hooseeya si uu akhriyo read more buu ku dhufan doonaa qofku intaa marka aad samayso waa safe and close waxaynu markaa halkaa ku sameynay article cusub oo aynu hoos geynay category-geennii hore ee la odhan jiray wararka waxaad ku ogaanaysaa inaad wararkii hoos geysay iyo in kale marka aad soo gasho content ee tiraahdo article manager article-ladii baa soo baxaya Crimea photos on joining Russia halkan ay ku taallaa waxaynu hoos geynay marka category-ga la yidhaahdo warar sida markaa loo sameynayo categories caadiyan waa intaa iyo articlesku sessionska dambe waxaynu eegi doonaa sida articleskeena loogu xidhayo menus-ka si dadku marka ay u arki karaan haddii la yidhaahdo macluumaadkii